waxa la yiri islaan ka mid ah caamada la marin habaabiyay ayuu bari ari ka lumay maqribkii ayay gabar yaro ari ay raacsatay inta timid bay tiri ayeeyaa arigii saaka sidoo iiga baxsaday meel alla meel uu jaaniga cirib dhigay warka ma hayo deedna maamada ayaa inta naxday ari kor istaagtay waxay tiri Sheekh Abdul Qaadir Jilaani oo ariga hadad caawa keento wan way baan daraada u gowracayaa isla daqiiqadiiba midigun bay eegtayo sawaarigii oo dhameystiran oo halkan soo xaroonay hada maamadii way yara bakhiisho waxay tiri hada sheekh malaha aad buu ma soo shaqeyneen ariga markii hore uu xirada kor taagnaa deedna arigada iska xareysatay laba maalimood kadib haddana arigii baxsado lumay tiirayd baa timid oo tiri ayeeyaa arigii maantana wuu lumay maamadii oo yar yaxyaxsan ayaa intay meeshii xirada ariga iska hor taagtay waxay tiri Abdul Qaadir Jilaani oo maanta afaan kuula hadlana iguma yaalo arigina neef kama soo xaroon waxaan uga daleeyahay nimanka la yiraahdo nabad iyo nolol baan muddo badan taageerayo oo dadka ka celcelinayo laha wadayo balukaadiya dawladdu ha dhalato oo ha dhaqaaq barato oo ha dhaamiso oo isbedelaysa sanadkii saddexaad ba in yar uga dhimantay ama u dhamaaday hadda wax laga suga hadda inta ka dambeeya dadkii waan wixii Allah waan soo wadnaa ko suga waxba uu ka socon laayahay waxay dhaafilado ninka la yiraahdo Bayle oo yiraahdo ay amftaan la kulanayo waxana laga cafiyay deemo sanduuq waakid deeq baan la soo siiyo waakid dekada intaas milyan ba ka soo xarooto airportka waa ka soo xaroota wuu buuxaa sanduuqa akira hada sanduuqa roday Bayle ay waxa sir sanduuqa mala waa kan masaajid hor yaale meesha dalasho wax laga rido waxba laga soo bixinin sanduuqa buuxa Bayle oo saddexda sanaad wax ku guurayseedan haddana dadna ka shaqaalaysiinayeen addiyo garan waaya dadtunka ku qaadan doontaan idin ma oran karo bas oo daroosi kara laakiin hadde warkii la eego maaragtay waxyaalo badan in baa yiri baa la yiri anu dharigay deeqi doona fadhiisan ka gartaa uu yiri inta ka badan idin ma qarin karo islaamba waxa la yiri wiil yar waxay dhashay doqon ahaayo maaragtay laga roonaha iska yar sanbac ah way yiraahdaan reer magaalku marka caruurta leeg iyo kuwa ka yar iyo way ka celin jirto maray ku hooyaa waxay dhigi jirtay ayada iska dhaafa waa toddoba jire alla waa 10 jire muddo 30 sano isaa ku waday markaas markuu 20 jir gaaro garweyn ka soo baxay manin garweyn ka soo baxay caruurtu ka yeeli waa 10 jire iska dhaafa markaas ay diri hebelo ku qariyo 20 jir baa tahay warayo deynta ka badan ya aad baan idin salaamay oo toddobaadkii ka wasla jirkii iyo bisla Maxamed Sheekh aad baan idin salaamay Soomaaliyeey